hay-adda Kasima oo kamid ah hay'adaha ka howlgala deegaanada Jubbaland isla markaana ka shaqeysa horumarka iyo nabadda oo dhawaan la wareegtay in ay dib u soo celiso bilicda magaalada Kismaayo ayaa waxa ay kulan ku qabatay magaalada Kismaayo kulankaas oo ay ka soo qayb galeen ganacsatada magaalada ayaa waxa looga wada hadlay sidii ganacsatadu ay uga qayb qaadan lahayd horumarka iyo nadaafadda deegaanka. Sabriye Xuseen Barre ayaa kulankan isna goobjoog ka ahaa oo warkan inooga diyaariyay. Kulankan oo ahaa mid u dhaxeeya mas'uuliyiinta hay'adda Kasima iyo ganacsatada magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka dhacay xarunta rugta ganacsiga warshadaha ee magaalada Kismaayo. Waxaana kulankan ka soo qayb galay ganacsatada magaalada Kismaayo noocyadeeda kala duwan iyo sidoo kale mas'uuliyiinta rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland oo ugu horeeya gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin. Kulanka ayaa waxa uu horeyn furay gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Jubbaland Mudane Shaafi Raabi Kaahin waxaana uu markaasi soo dhaweeyay shaqooyinka habsami socod kale ee hay'adda Kasima ay ka hayso magaalada Kismaayo isagoo ganacsatada ugu baaqay in ay maal gashadaan mashruucyada yaryar ee loo baahan yahay in ay markaasi wax ka qabtaan. aan ku fakarnay cid walba oo bulshada gacan siinaysa oo waxay ka shaqeynayso wax dhab ah oo ummadda wax taraya ah in anaguna aan iskaashano gacan isisino ajandaha maanta raggan odayaasha Faysal iyo Aadan ayaa ka hadli doona laakiin waxay ku wareegaysan wacyigelin iyo sidii ganacsatada loogu wacyigelin lahaa projectiyo yaryar oo inay ay maal gashadaan ay tahay projectiyadaas ay maal gashanayaan ganacsatada qof tabar yar baa maal gashan kara ku roon baa maal gashan kara dhawaantana nacfigeedu waa mutacaddi waa nacfi dadka bani aadamka ee magaalada joogana ay ka faa'iidayaan qofka ganacsada ee wax maal gashadayna uu ka faa'iidayo waxaa la maal gashan karaa ayagaa ka hadlaya waa waxyaabo fara badan oo qaybo kala duwan waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo xafiiska walaalaha Kasima iyo bahda kale ee JCC ba xafiiska JCC waa xafiiskoodii. Kulanka markuu soo ilaaday kadib waxaa Jubbaland TV la hadlay Faysal Maxamed Mataan oo kamid ah hay'adda Kasima oo ka warbixiyay mashruuciyo ay kamid yihiin in la maal gashado biyaha iyo sidoo kale nadaafadda oo ay kala hadleen ganacsatada magaalada Kismaayo. Waxa wada qabanay shir rugta ganacsiga dawladda Jubbaland xarunteeda magaalada Kismaayo hay'adda Kasima iyo waxa wada qabtay shirkaas workshopkaas rugta ganacsiga dawladda Jubbaland waxaa looga gol lahaa in la isku arko oo la isku wareysto oo lagu wacyigeliyo ganacsatada deegaanka ujeedada shirku waxay sidii loo maal gashan lahaa biyaha iyo mataqaanaa iyo nadaafadda ayay ahayd ganacsatada waa is wareysanay wareysi dheer iyo isxog wareysi kadibna waxyaabo badan aan noo soo baxay waxaan soo saari doonaa report wada jira annaga iyo rugtu hadduu ilaahay ku roon yahay waxyaabo badan oo naga soo baxay waxaa ka mid ahaa quickly hadda u dulmaro in mataqaanaa education investment loo baahan yahay horta dadku maalgashi baa laga sheekay qaabka dadka in la baro macnaha wacyigelin baanu ka hadlaynaa in loo gudbo baridda qaabkan investmentiga ama maalgashiga uu dhici karo ama sidee wax loo maalgashan karaa waxay u baahan tahay cilmi iyo dheeraad sustainable security system wax loogu yeero la yiraahdo nabadda joogta macnaha xasilooni joogta waxa waaye in la helo maxkamadihii shuruucdii in la sameeyo ganacsiga iyo maalgashiga lawyer professional in loo helo long term future in laga fakaro macnaha maalgashiga iyo waxaas iyo wixii la xiriiro dhan. Waa markii ugu horeysay ee hay'adda Kasima ay kulan la qaataan ganacsatada magaalada Kismaayo xarunta gumeel gaarka ee dawladda Jubbaland kuwa oo u soo bandhigay mashruucyo markaasi loo baahan yahay in ganacsatadu ay maal gashadaan.